السلام عليكم أبي وناكسن مال وناكسن وقت والبا يكون وناكسن سودا وهذا أصحابها نقول حرن channel كسكي من نما قعمة فرن قلبي فرن سودا وهذا وحن كلنا فضلنا هذا نقول حسبت هاي سبسكرايب كان وصار هي شركة لا تبع دهر نقول جوكتي بإذن الله كريم هذا يوم ما سنتين أصحاب تقاليقا سي شير قراية فضلا سيدا أصحاب وناكسن سيدا ديقا وقارو مال دار فيديوغينا ليكتنا نوسية بإذن الله كريم ودو لا كرال نقضو سودا هذا مرول بو أصحابته وناكسن waxaan maanta ka hadlaynaa barnaamijkii ahay xaaladaas inaan mar walba dhagaha u taageynay gabartii yareed ee lagu tumay magaalada Kaalkacyo ee eedadeed sida xun adiga dad qalata nool iska dhig eedada dad qalatada ahayd ayaa maanta la xukumay cadaaladda ayay martay iyadoo lagu xukumay 3 sano oo xerig ah faahfaahin kale ma sii geli karnee bal hee nala daawada ka bacdi ayaan hadduu ilaahay yiraahdo dib iskugu soo noqonaynaa barnaamijkaas anagoo falaqay doona hadduu ilaahay yiraahdo maxaa yeelay cadaaladda adiga u baahan aniga u baahan qof walbo oo islaam cadaaladda ay u baahan tahay bal nala daawada hadduu ilaahay yiraahdo wadda sarafta ka codsanayna in eedaysanaha ku canqaab u dhiganta haweeneydan oo xiraarinta gobolka ay ku soo eedeeyeen in ay jirdil iyo dhaawacyo u geysatay gabar yar oo ay eedo u tahay oo 12 sano jir ah isla markaana korkeeda uu dhaawacyo ka muuqday ayaa xiraarintu waxay eedeynta ka bacdi ay codsadeen in 5 sano oo xariga iyo lacag ganaax lagu xukumo waxaan maxkamadda sarafta ka codsanayna in eedaysanaha ku canqaab u dhiganta gudiyada ay geysatay laguna canqaabo xukun 5 sano ah oo xarig ah ganaax lacageed oo gaaraya $1,000 si waafaqsan qodobada 440 gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee magaalada Kaalkacyo Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa waxa uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda markay maxkamaddu aragtay hay'adda xafiiska xeeraarinta gobolka mudug sida ku cad xaashida hay'adda xafiiska xeeraarinta si waafaqsan qodobka 69 70 iyo 71 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed hay'adaas oo ay ka ahayd eedaysane luul Sheekh Cali Axmed 37 jir ah ina Faadimo Faarax ku dhalatay Muqdisho ayna dibana ka ahayd Qaali Ilyas Sheekh Cali Axmed 12 sano jir ah ina Aamina Axmed qodobada lagu soo eedeeyay oo kala ahaa 440 iyo 164 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay maxkamaddu aragtay jawaabta eedaysanada si waafaqsan qodobka 104 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqradiisa koowaad xarafkiisa C oo aqraar markay maxkamaddu aragtay xaashida dhaawac muujinta ee ka soo baxday isbitaalka TFC ama dhagacade markay maxkamaddu u caddaatay ka weecinta dhibanada in laga weeciyay ujeedkii lagu keenay eedaysanada oo ahayd inay caawiso taas beddelkeeda oo ay eedaysanadu dhibanada kula kacday tacaddi jireed iyo mid nafeed iyo ku shaqaysi ka baxsan xadka markay maxkamaddu ay aragtay caddaymaha laga qoray eedaysanada sida gungaarka booliska iyo caddayn garsoore hortiisa laga qoray markay maxkamaddu u caddaatay in eedaysanadu ay gashay dembiyada lagu soo eedeeyey sida ku xusan qodobka 440 iyo 164 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed go'aanka maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee degmada Kaalkacyo waxay eedaysana luul Sheekh Cali Axmed 38 jir ina Faadimo Faarax ku dhalatay Muqdisho degan Kaalkacyo ku xukuntay 3 sano xariga iyo sidoo kale ganaax lacageed oo dhan $1,000 iyo magdhow dhan $4,000 oo la siinayo dhibanada sidoo kale maxkamaddu waxay go'aamisay in dhibana Qaali Ilyas Sheekh Cali ay gacanta ku hayso wasaaradda arrimaha haweenka iyo qoyska ee dowladda Puntland inta laga helayo cid ka faala qaadi ka dhan horsheeda
waafaqsan shareecada islaamka iyo qaanuunka dalka u yaala maxkamadduna waa xiran tahay sidaa daawateen waa dacwadii maanta sida cadaaladda ku dhacday xukunkaas uma qalmaan dhihi karaa ani maxaa yeelay gabarta dhaawaca soo gaaray tan jireed waxaa ka darantaa maskaxeed barbareenka noogu badan oona haystana maxaa waaye maskaxda waaye maskaxda qofka bini-aadanka waa meesha ugu xun inuu ka dhintaa qofka hadduu dhinto waa allah naxariistaan leenahay laakiin qof nool oo maskaxda ka dhintay see la yeeli karaa ma la soo celi karaa su-aashaas waa adag tahay jawaabideeda maxaa yeelay inta badan inta maskaxda wax ka gaartay si kusoo dhaqato waa dareemi kartiin qofka kaniiniga ku soconaa cabsi badana haynayso gabartaas yariistaa 12 jirka waa meeshii wax ka bara lahayd waa mustaqbalkii dalka iyo dadka bari waxaa dhihi lahayn waa gabarta mustaqbalada dalkeena ka lahayd hogaamiyaha dalka la dhihi kara la dhihaa haddana insha allah waa hogaamiyaha dalka waa iftiinka dalka weli laakiin eedadaas ha marto ciqaabta shalay iyo maanta shalay gabartaas wixii ku yil jirkeeda ilaa weli ka maraysan waa ka muuqataa eedadaas eedo lamid eh adduunka inay saaran tahay ma u malaynayay maxaa yeelay waa qof bili-aadane intuu qof bili-aadane uu ka baxay bili-aadanimada ayay ka baxday su-aasha marmar isweydiiyo gabartaas marmarka qaarkiis waa ku qarwaa su-aasha isweydiiyana waxay tahay hooyadaas amba eedadaas wax ma dhalin miya waa su-aal haddaan wax dhashanayo ma rabtaa cunugaaga inay saas la yeelo aniga maanta aaba soomaaliyeedaan ahay sidaan aniga oolaadeeda maanta aan u jeclahay oolaada walaaladana aan u jeclahay oolaada soomaaliyeedna u jeclahay oolaada islaamkana u jeclahay waxaa ogaataa guriga wuxuu iftiinayaa markii laysku naxariisto walaalahana ha isku naxariistaan soomaaliyeed ehelkana ha isku naxariistaan mar walba eedadaasna waxaan leeyahay ma kugu diganayno laakiin sharciga ayaa kugu diganaya maxaa yeelay adiga waaba samaysa waxaa samay lahayd laakiin qofka dambo inaysan ku fududaanin waxaasoo kaleeto gabartaas maskiintaana waxaan leenahay ilaahay qalbigeeda ha u bogsiiyo nabaradeedana ha u bogsiiyo wanaagga waa muhiim xumaanta aan reebno anagoo wada jirno maxaa yeelay xumaanta horumar ma lahan wanaaggaa kheyr badan soomaaliyey ballanteena waa wanaagga xumaan ha laga fogaado insha allah biidn illah karim fadlan mar kale waxaan ku leenahay haddaad nagu cusub tahay ballanteena waa subscribe-ka iyo leegta iyo sheerka sidiisi adigoo kaleeto saaxiibo fiican oo u gaaro videogeena meel dheer ha noolaato soomaalinimada ha noolaato wanaagga iyo kheyrkaba insha allah biidn illahi karim waxaan leenahay isku soo naqa dambo anigoo caafimaad qabno iyo idigoo caafimaad qabtiin insha allah biidn illahi karim dalkiina abaaraha loogu duceeyey cudurada jiro asxaabey maxaa yeelay nin walba dalkiisa ayuu dadku yahay qaxootinimadane amba dhulkan dhalaalaya anaga ma lihin mar walba soomaali waa soomaali amba somaliland joog amba puntland joog amba jubbaland joog amba kilika shala joog amba waxaa joogtaa kenya soomaali waa soomaali maxaa yeelay hal magac ayaan wadanaa wax noo bedelahay ma lahan insha allah biidn illahi karim fadlan mac salaama insha allah biidn illahi karim isku soo naqa dambo insha allah biidn illahi karim mac salaam bye bye